السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا Cooking with Hafsa. Cooking with Hafsa waxa way program loogu talagalay barnaamij loogu talagalay in lagu soo bandhigo cunto Soomaali casriyaysan oo si healthy loo sameeyay in 15 daqiiqo gudahooda. Shikada waxa way soo ka bax 5 minutes wax fiican insha Allah. Okay, maanta waxaan sameynaynaa custardkii wada taqaaneen oo Soomaali aan ku sameysan jirnay. Laakiin waxaan laga ma sameeyay waxaan qashin waa ma u baahnid mid fresh aan sameynaynaa oo ma aragta caafimaadkaaga u fiican caano laga sameeyay wax tar leh insha Allah. marka maxaa u baahan tahay marka custardka sameynaysid ayna waxaan ku tusayaa wixii u baahan tahay oo wada sameynaynaa insha Allah. waxaan u baahanahay biyo yar wax yar oo biyo ah waa ka biyaha inta ku shubanaynaa biyana marka inta ku shubana safartii aan ku shubanaynaa 50 gram waxaan u baahanahay caano miir waxaan u baahanahay badal basal yar oo saxamada la marmariyo waxaan u baahanahay balkan lagu qasaayo ukunta markaan jibnaan ku qasanaynaa waxaan u baahanahay 60 gram oo sugar ah iyo koob iyo bar caano ah waa 3 xabbo ukun ah meel shiilan aan ku daraysaa marka isku qastaa ku miiranaynaa waa arki doontaa badalkeena aan sii marmarsanaynaa marka waxa way si aysan nooga dhigin sokorta midda ay noqoto waxaas way la rabaa sokorta inay noqoto saas markay u gududato waxaan ku shubanaynaa koobabkeena oo noo diyaar ah oo aan badal mariyay waxaan sameynaysaa meelaha dhan ay gaarsiinaysaa geesaha ukunteeni aan inta ku qasanaynaa waxaa ka ilaalinaysaa xambo inay yeelato xambo uma baahnid ayaan kulmaysanayna waxaan ku darsanaynaa 60 gram oo shakar ah waa isku qasaynaa sokortan caanaheeni oo qanda ah aan ku darsanaynaa shiidna ayaan ku darsanaynaa shiidan carafku ka dhigaya waxaan samaysanaynaa hadda waan miiraynaa diidayaa dabka inay iga gubato mixture-keeni oo custardka ah inta ku shubanayna marka waxaan uga duubaynaa aluminum foil-kan custardka inuu hadhowta labeen camal ka noqdaan diidaya وما عرفتي خلص خلص في عين وقرن ربع مركز waxaan noo haraynaa sameynaa biyaan ku shubaynaa halkaas biyo kulul aan ku shubaynaa halkaas waxaan ku ekeynaynaa meeshaas ugu hooseyso kaleet meelahaas oo kale aan ku ekaysiinaynaa kor ma soo gaarsiinayno looma baahna inay dhex gasho dabkaan saaranaynaa biyahaani karkarayaan ku shubanaynaa waxaan ku karinaynaa dab aad u gaaban waan sugaynaa 18 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo markaasaan ka baxsanaynaa waan noo qaboobay kan gashanayna markaa kaasay u ekaadeen markaas hadda marka maxaa samaynaysaa saana samaynaysaa mindida geesahaas uga marinay markaasaas uga marisid
شاء الله هذا وقرحون يهي